la yaab kale oo aan rabo inaan meeshaan aan ku soo sheego ayaa waxay tahay wax ka waramayaan qabaa'ilada reer baadiyaha ah ama xoolo dhaqatada ah waxay leeyihiin markaa Soomaaliya dadka xoolo dhaqatada afar qabiil oo waaweyn bay ahaayeen afarta qabiil marka la isku daro qiyaasaantii ilaa 2 milyan ayay ku sheegeen afarta qabiil ayadoo markaas la yiri waxa lagu daray ama ku jira qabiilka yiraahdo hawiye waxay yiraahdeen marka afartoodu waa daarood iyo hawiye iyo dir iyo saaq iyo dir weligood ba taariikhda markii dib loogu laabto sabir bay kala socdaan laakiin maanta waa soo kacay daraaro isku dartay waxay yiraahdeen daaroodku waxay dhaafayaan bay yiraahdeen 1 milyan 2 milyan bay ahaayeen 1 milyan daarood bay ahaayeen bay leeyihiin qabiilada kala soo haray hawiyuhu qiimo ilaa 500 bay dhaafayaan bay yiraahdeen ama 500 kala weeye dirta iyo saaqu marka loo wada isku darana 500 bay isku noqonayaan bay leeyihiin ama waxay bay dhaafayaan waxay isticmaalayaan ereyga exceed marka kulay wax baa raacsan marka 2 milyan bay ku qiyaasayaan reerahaas maagaysa marka Soomaalidii afar qabiil baa loo qaybiyay xoololeyda ah كل دقيقة يمر في قبيلة حوينتها ومضى يا ربنا كل قبيلة حولية من بيرلي بعين مرمى يا مركب عليه هويه شاب قلبي عين درت إيوه يسافر شاب قلبي عين دارت كل مليون بوها ولا مليون بعين بيعني كل ما حصل هذا كانوا وهذا consideration له ده الحوار عن ناس عكسنا ده وحاجة شيء نقضي على محلسة ولا يلاقيه جنرال جا أقول بحيلي سؤال دم بيسحيلي ها أيوة بليه دراسة السمية بقولكيبا سيدات بقولكيبا صدني سيدات سومالي دو هوي ولي دارت هنا وسيدات يتون حنا عارف ورئيسي مردم بقى لو رئيسي بيقعد على محرستو بدوني إنان أسرع شخصيا أو حوار شغالة لتبع ذلك يقول لكن أيديا لا هواي نشان شكرا أرتا دتك الصوماليات هوية أنت كيها ترديسة أنت كيها وحال ليري markii trakoob la sameeyay trakoob markii la sameeyay boqolkiiba 38 dadka Soomaalida oo jamhuuriyadda ku nool waa hawiye waxa ku xiga dadka isaaqa la yiraahdo oo boqolkiiba 25 ah waxa ku xiga dadka daaroodka ah ee jamhuuriyadda ku nool oo boqolkiiba 18 ah marka hadda waxa weeye 38 iyo 18 waxa u dhaxay wada jeedaan marka waxa weeye dadka majority-giisu waa hawiyaha hawiyuhu marka sida sharcigu qabo waa inuu hogaamiyo majority-ga hogaamiya waa inuu hogaamiya hadda tirana waa leeyahay tayana waa leeyahay sida qofka markuu doonayo ummadda inuu ku sheego halka uu hariyo halka maanta Allah uu hariyo marka inta halka adiga dambeeyay dhigsan doona waxa internetka kala uu joogayaan xamar walba fiican marka dadku waxay leeyihiin macluumaad iimaanka dhaxalka laga fiirinay in dadka naga dambeeyay ee wax yaqaan ama wax baran doona dhalinyarada ah in looga tago reference halaga marka boqol sano ka bacdi muuqaalka hadda duubay hadii wiil dhalinyarada Soomaali ah aqoonyahan uu daawado wuxuu fahmayaa hadalka anigu aan leeyahay waxaan ku dhisayaa book ay qoreen siyaasadda Mareykanka marka laga yaabaa in la yiraahdo okay xuseen halkan ma dhinaca soo socota ninka adeerka ayaa ma xaristo mikrofon baa waxa lagu weydiinayaa xageeta ka dalay information marka hay'adda ayaa qabtay gulay ma xasuusta bacda leeyahay ma yimid buugi bixiisa taqaana ma marka harsan inuu baaqshay laakiin anigu maanta halkan leeyahay warsan dhicin ma ahan reference gulay ma jecesha dhacta ma ahan laakiin waxa uu sheegaysaa Soomaaliya xilliga joogtay ee reer baadiyaha ahayd 50% oo ka mid ah dadku haya maanta markaad fiiriso dhulka ay degan yihiin qaaradu Soomaaliya ka way ka dhow yihiin wali magaalooyinka iyo dhulka ay degan yihiin xataa dhul aan degan ma dhul aad u degan yahay markaasa dhulka Soomaaliya markaad fiiriso dhulkan NFD markaad fiiriso hadda gobolkan Bulaan Jubayd markaad fiiriso Buntland markaad fiiriso ilaa ay Sool markaad gaarto dhulka Shabeelle markaad fiiriso ilaa ay Sanaag all the way down markaad fiiriso dhul aad u badan marka mathematically maanta markaad isku darto magaalooyinkaasi waxaan fahmi karnaa inay dhul aad u tira badan degan yihiin qabiil badanna uu yahay baan fahmi karnaa magaalooyin yar baan magaalooyin waaweyn massive laakiin markii la dhaho hawiye caasimada aynu xamar ka saxno oo very diverse area baan ka saxno dhulka ay degan yihiin waa dhul yar kooban dhinaca waxaa u sheegaya hiiraan dhinaca galguud qayb kamid ah u sheegaysa iyo baada waa zone yar oo kooban weeye zoonkaasi waa kooban hataa gobol gada kama weyn magaalooyinka ku yaallay cameer markaad fiiriso la degan yahay magaalooyin yar oo kooban badnaashuhu macna ma sameeyo quality macna sameeyo dadka waa la tirin doonaa Soomaalida laakiin dalka nagu wuxuu muddo badan aan isku leenahay ana kala dhalisa wuxuu rabaa maxay sameeyso marka intaas aan ku soo koobaya dukumiintiyada nooca oo kala ah
فهم بينو كقادن دونا مر بو أنا هلا وفرنقين دونا أو هي أدتين دكوا أدن واسم هي قلب very interesting كوا أنا قلب كإلا يعبي وقلب كمن رأس كوي هذا يوم غدا معنا رأس بيحرق الله يسلمه بدلها هذا الإسلام يبغى بوجبتان يسوق دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.